amlayaasha iyo macallimiinta gudoomiyaha waxbarashada degmada xogayaha dawladda hoose waalidiinta ardayda dhammaan ka soo qaybgalayaasha saxaafadda ciidanka booliska dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan aad baan ugu faraxsannahay ka maamul ahaan inaan ka soo qaybgalno xafladdan quruxda badan waxaana u mahad celinayaa dhammaan intii xafladdan quruxda badan intii soo qaban qaabisay iyo intii ka qayb qaadatayba waxaan leenahay waa mahadsantihiin intaa kadib runtii si gaar ah waxaan halkaan uga mahad celinayaa maamulaha iskuulkan daawad macallin Cismaan maamul Cismaan iyo macallimiintiisii oo runtii aan isleenahay iskuulkan taariikhdiisa laga soo sheekeeyay daawad oo muddo dheer ama jiilal badan ay ka soo baxayeen waa iskuul runtii taariikh weyn ku leh degmada Ayl iyo guud ahaan Soomaaliya waxaan leeyahay marka maamulihii iyo macallimiintii iskuulkan muddada dheer ka shaqaynaysay ka hawlgalaysay jiilal fara badanna soo saaraysay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin abaalkooda ma gudi karno balse waxaan leenahay waan u ducaynaynaa in ilaahay adduun iyo aakhiraba khayr siiyo dadkii ay wax soo bareen iyo dadkii ay soo beerteenba insha Allah kullu waxay la tahay inta adduunkan la joogana abaal bay keenayaan aakhirana ajir bay keenayaan maadaama ay arday ay wax soo bareen inta kadib ardaydan galabta xafladda halkan loogu qabtay fasalka 8aad ee dugsiga daawad iyaguna waxayna ka mudan yihiin inaynu u ducayno maanta ducayno ka baahan yihiin waxaanu leenahay waxbarashada hadda indhuhu waa idin furmeen aqoon fiican waad leedihiin meel fiican baa soo gaadheen in badanna waa idin dhiman tahay inta idin dhiman oo imtixaankan hadda idin sugayana uu ka mid yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa inaad dhammaantiin aad wada gudubtaaniin inaan dhammaantiin aanu maqalno ardaydii 8aadka ama iskuulkan ha noqoto ama iskuulaadka kale ha noqdeen iyo kuwa kaleba guud ahaan in la yiraahdo dhammaan ardaydii reer Ayl sanadka gundooyin fiicanna waa keeneen waana baaseen ardayda marka dadaal baa layna ka rabaa macallimiintii iyo maamulihiinii iyo waalidkiin iyo dhammaan annaga oo dhan waxaana farxad gelinayaa inay waxbarashadiina noqoto mid wanaagsan dhagaha iyaguna inay maqlaanin ardaydii dhammaan way baaseen ilaahay idinkiis marka waan idin rajaynayaa idinkuna dadaal muujiya imtixaanka inta ka dhimanna aynu samayno dadaal dheeraada wax akhris dheeraada wareegga iyo suuqyada iyo meelahaas iyo mobilada tan maaragtay hadda dadka waalay iyo facebookyada tan intaynu halkaas iska dhigno inta yartaay oo inoo dhiman aynu dadaal badan aynu samayno marka insha Allah waan idin hambalyeeynaya guul iyo khayr iyo nabad baan idin rajaynayaa insha Allah inta kadib kamaamul ahaan waxa naga go'an inaanu mar walba waxbarashada aanu gacan ka geysano inaanu taageerno iskuulkan daawad oo hadda aynu joogno iyo dhammaan waxbarashada oo iskuulaadka kale ka mid ah dhammaan maamulka degmada wuxuu ka shaqeeyaa inay iskuulaadkaasu ay helaaniin in fasalada qayb lagu daro iyo guud ahaan iskuulaadkaas in dayactir lagu sameeyo maamulka degmadu mar walba qayb buu ka yahay insha Allah haddana waan sii laba jibaareynaa shaqadaas wanaagsan oo aan waxbarashada aanu ka wado waxaad kale la socotaan in iskuulkan daawad sanadka waxaanu ku dareynaa haddii ilaahay idinkiisa ay noqoto waanba gudbinay sanadkan gudihiisana waa inoo hirgelayaa dayrkiisa maadaama uu gaaban yahay mashruucan JPLG-da sanadka waxaan ku darnay iskuulkan daawad in kor loo qaado dayrkiisa marka insha Allah mar walba waanu garab taaganahay waana ku dadaalaynaa inaanu waxbarashada iyo meelaha noocaas oo kale ah inaanu gacan siino